dad qalatadii gabadha yarta ee masaakiinta agoonta aan nooca u gashay arintii aan muuqaal hore idinkugu la wadaagoon idin lahaa waxbaa ka soo kordhay maxkamadda hortoodana way ka dhaceen dad badan oo kalena fuustay ku soo riixeen laakiin maxaa laga damacsan yahay muuqaalkan kugu la wadaagaya ha iga degdegin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا جودهان شعب كصومالية ذو ملك السودان ذا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا نجو نبض يا عاف مد قبنا الرب جن ومركل الدب إنه كل شيء السجى مهدا سوى ذا الوسوناتي أنت ربنا الله كدر القاضي أنت سوق توصلت هنا الله وبركاته نبينا عليه الصلاة والسلام أنقوذ صلنا حتى الشانل كي يكون عصبت هنا سبسكرايب يسار مقال كان لايك نوصار وحتى لي تصالع قيبت كومنت كذا يقولوا ذا جدونتا أدب وما سنتين ولا ليال صدا على الصعوتان islaantii dad qalatada ahayd ee gabadha masaakiinta sida bani aadamnimada ka baxa ah oo ay oola dhaqantay aan la socotaan waxaan idin sheegay muuqaal horan idin kula wadaagay in arrin sir ah oo la doonayo sidii islaantaas loogaga badbaadin lahaa maxkamadda in laf la tuuro ayaa arrin loo soo abaabulay horta ilaahay mahadi dhakhaatiirtu waxay xaqiijiyeen oo sheegeen sida warar hoose أو أن دت كوي دي يحقيقين جباداس وح كفسة ما أنو جارين مركه هراء شكل جواب بدن وحوها ولقي شكل قبي جبادن أما أنتي لا كفصدي أو جوري لا وضح كفصدي أور يوحنا عاسى أنت يالتي سي أنا أرنتم بناك أوجسوا بحين أوجد أما جبادي سيدا الوجود لي وحنا عاسى دت خار كود أمي سنين لكن أرنتي الحمد لله دت بدن أوسيه أنا ورستي أرنتها ما أنا حقيقين waxbana arinta kama jiraan ayaa la ii sheegay walla socona boqolkiiba 99 dadka Soomaalidu qabka ay wadam qadeen kiiskan iyo dhibaatada foosho xun ee gabadha ayadoo ayay dhaysan naftu ka baxday waa la wada soconaa saas ay tahayna dadka Soomaalida dhexdeeda lagama waayo dad mujrimadaas iyo mujrimkii iyada qabayba baagaroon ahaan intay gadaal u marsadaan iyagu iska soo hormariyay lama waaynayo waxa la sheegay oo laf ahaan social media lagu soo dhaxtuuray in dad qalatadaasi ay miir ahaan u xanuunsan tahay oo xanuuno ay ku dhacaan oo ay suuxdo mararka qaarkood ay dhacdo waxa ay sameeynaysan ayna ka warqabin waxa ay sameeynayso aan ka warqabin laakiin ilaah baa idinku dhaariyay qofka noocan loo xirxiray ma qof aanan iska warqabin baa xirxiray waaba seexanay bay tiriye ma ayadoo hurudo ay xirxirtay dad badan baa waxay leeyihiin hala kala saaro ninku maadaama gabadha uu furay oo islaanta aanay isqabin dad qalatada ah maxay ahayto laba kiis laga dhigo see looga dhigaa ilaah baa idinku dhaariyay qofka nooca u xirxiran ma qof dumar ba saa u xirxiray qofkaan aragnay ee islaanta maxkamadda ka muuqatay miya gabadha 14 jirka ah shaamuugan u soo qaatay ay ila qabsato aniga ciijo ku dhagay say shaamuuga igaga fooqdo ma qofkaas ushi ay ku garaacaysay la qabsaday oo ay ka foqsan wayday baa qof bani aadina oo nool nooca u xiray no arintaas waa in maamulka maxkamadan darajada koobaad ee gaalkacyo ay si qoto dheer u baartaa arinka gabadhaas hal qof oo dumar ah nooca uma aanu xirxirin noocaas hal qof oo dumar ah uma aanu xirxirin waa in soo hoos loo ogaadaa marka laftii la tuuray ahayd gabadhu way suuxdaa oo intay ka baxdaa maxkamadda horteeda waatay ka sheegtay oo tiri anigu waan dhacayo waan suuxayo waxa aan sameeyay marka qaarkood ma aqaaniba isla ayadiiba isku xaqiijinayso oo sheegayso oo leh waxa aan jirkeeda saa ku yeelay waa shabuug arinta kale ee muhiimka ah waxa waaye gabadhan in sidaa jirkeeda loo jarjaro oo sidaa mindida loogu warwareeno waxyaalahan maartay sakutuurooyinka lagu furfuro ayaad moodaa gabadha in saas loogu midmoodaa jirkeeda qofka muuqaalkeeda nooca laga dhigay qof bay wasabka ugu direysay shabakad isku xiran inay yihiin waxa ku dareemi kartaa muuqaaladan marba intay duubto ay wasabka ku direyso way duubtaa wasab bay ku dirtaa way duubtaa dad bay u dirtaa xitaa muuqaalka markii ay gabadha yarta ka duubayso way ku dul hadlaysaa fiiri inay qof kale la hadlayso kale ay ku dul hadlaysaa ilaa qof kale u direysaa muuqaalkii marka dadku maanta way soo jeedaan ummadda Soomaaliyeed maanta way soo jeedaan waxay sugayaan oo Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala cadaalad ay gacantiisa ku jirtaa maamulkaas Puntland laga sugayaa oo waliba maamulka gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo laga sugayaa oo garsoorayaasha maxkamadda ee sida jilicsan u hadlayay laga sugayaa
ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintii yowm alqiyaama hortiisana waa la isku weydiinayaa gabadha yarta ah ee sidaa tacadiga ah loo dilay in xuquuq ay u hesho. ummadda Soomaalidu dhagahay kor u wada hayaan. xaaladii hore ma aha. qof kasta oo luuq kaaga hor imaado wuxuu wax kaa weydiinayaa kiiska Saabiriin, rabbi ha u naxariisto iyo silaca loo dilay. maanta marka waxyaalaha dhagahanaga ku soo dhacdhacaya oo aan maqmaqleyno wax dhagaha ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed u ron ma ahan. tanna waa tii lagu kala baranayay cadaalad inay jirto iyo in aanay jirin. ummadda Soomaalidu sidii caashayr ay ugu kaceen ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa. haddaba waa loo kacay in Saabiriin loogu kaco, gabadha agoonta ah ee rajayda ah ee maanta silaca aad aragteen u dhimatay in loogu kaco biidnillaahi alkariim oo aan sida lagaga aamusin. maxkamaddu waxay sheegtay maalinta Isniinta in dib la isugu soo laaban doono maadaama looyaradii qaar ka mid ah ama qareenadii qaar ka mid ah maxay ahayd isu soo diyaarintoodii aysan dhammaystirneen. anigu ma garanayo qareen islaanta mujrimadda ah iyo ninka odayga ee mujrimka ah ee ku heshiiyey gabadha masaakiinta ah inay nolosha ku aasaan. nolol bay ku dileen gabadha, wallahi nolol bay ku dileen. iyadoo nool bay gabadhaas u dhinsaneed. xaqiiqda markaan ka wada hadalno waay labadaa qofood maxkamadda horteedana islaantu qaasatan way ka qiratay, dowladuna afkeeda ka sheegtay oo macnaha waxa weeyaan talaha ciidanka booliska magaalada Gaalkacyo mar uu ka hadlayay arintaas waa uu sheego wuxuu yiri labada qofood ee u xiran kiiska Saabiriin mid kamid ah waa qiraal. marka qof qiraal ah oo qirtay in dhibaatadan uu geystay gabadhaana nolosha uu ku duugay oo dhibaatada inta leeg u geystay ma garan karo sababta lawyer inta loogu qabto iska daba wareejis loo galayaano ma garanayo. wadna arki doontaan haddii maxkamaddu qaabkay u socotay maalintii Khamiista aan wada daawanaynay ay u sii socoto iska daba wareeg dheer bay gali doontaa oo xitaa waxa la isla gaari doonaa in la yiraahdo Garowe iyo gobolka Nogaalhana la geeyo. waana isla wada joognaa haddii sida maxkamaddu ay ku socoto aan wax laga bedelin. ilaahina waxaan u weydiinaynaa Saabiriin maanta way mootanta oo naga hooseysaa iyadoo mootan in cadaaladeeda rabbigan u soo dedejiyo ayaan rabbi weydiinaynaa. arinta kale ee muhiimka ah waxa waaye gabadhan in sidaa jirkeeda loo jarjaro, qofka muuqaalkeeda nooca laga dhigay qof bay wasabka ugu direysay. waa shabakad dhan oo isku wada xiran oo ku heshiiyey gabadha yarta ah sidii ay nolosha u dhaafin lahaayeen. garan maayo gabadha yarta ah ee 14 jirka ah waxa ay intaas oo dada inta isugu bahaysteen ay dhibaatada inta lagu geysteen. laba qodob oo kale oo aad u muhiim ah ayaan doonayaa muuqaalada xigeen in kugu la wadaagay halkan igala socda. aad baa u mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.